soo dhawow walaal magacaaga ku bilow barnaamijka maxaa ka guuxaya walaal wixii ka guuxay noo wadaag magacaygu waa Jamaal Salaad Jaamac waxaan joogaa magaalada Qardho waxaan ahaa taksiile maankayga waxa ka guuxayo lacagta shilin Soomaaliga oo la waayay haddana aysan u muuqan idifaalo inay soo socoto ah marka haddii saan lagu sii jiro dadka soo noqon doonaba maankayga ka guuxayso wixii yar oo la helo oo dollarka hayna waxa ma tarayso marka maankayga waxyaalaha ugu darno ka guuxay 99% shilin Soomaaliga oo dhibaato naga haysato oo aan meesha oolin haddana qolo isu xil saartay oo ku mashquulsan aysan jirin ayaa maankayga ka guuxayso si dib loo soo nooleeyo yaa fariinta u diraysaa marka waxaan u dirayaa dawladda Puntland oo ugu horeeyay madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani oo ku xigay madaxweyne ku xigeenka oo maartay madaxda dawladda kulligeed guud ahaan ciidamada qalabka sida kulli waxaan fariinta u dirayaa inay noo soo celiyaan shilin Soomaaliga ay isku mashquuliyaan oo ay culayska u saaraan oo ay ka seexdeen lacagtii shilin Soomaaliga sida u soo noqon lahayd falkood ay galaan oo ciidamada ay mushaar ku siiyaan oo ay dawladda ay maartay wasiirada mushaaraadka ay ku bixiso si magaalada ay u soo gasho u socoto taasaan aad u jeclaysan lahaa waa mahadsantiin